اسمه كو عبد الله تبدأ بيها كده على ساعة الله كالي من شو قال عاونا واحد على الأقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكي ololaheenii billaha ahaa ee ololihii nadaafadda ee dawladda guud ahaan ay ku wada dhawaaqday laakiin gaar ahaan ay gobolka Banaadir 17 degmo inay ka hirgalaan waa markii labaad oo ololihii labaad aan wadno maanta ololaha nadaafadeed waa anagoo ah gobolka Banaadir oo waliba kaashanay labada degmo ee degmada Howlwadaag iyo Hodan oo ay gudoomiyaasha hadda nala joogaan waxaan ka bilownay nadaafadda wadada loo yaqaan kacanka ee ka soo bilaabatay isgooska Bakaaraha ee si dhaxmartay ilaa ay gaartay isgooska Blacksea oo micnaheedu ah wadadaas isku xirta wadada wadnaha ilaa ay wadada Sodonka wadada isku xirta ayaa saa ka soo bilownay dad ayaa wadada ku ganacsanayay xitaa waxaan ka qayb qaadanay dadka alaabtooda inaan la burburin dhamaanteena waxaan ka qayb qaadanay alwaaxyada la qaadno alaabtooda meesha kala qaadno dadkii intii aan taan la bilaabino ka hor wacyigelin ayaa la sameeyay oo mikrofon ayaa la qaatay hawshaasna waxa si fiican u qabtay labada degmo oo ka qayb qaatay oo dadkii la hadlay oo wacyigeliyay dadkina way nala shaqeeyeen ilaa ugu dambeyntii alaabta annaga isla wada qaadno oo taa micnaheedu waxay tahay annaga iyo dadka maanta shaqadooda bilaabno annagoo dawladda hoose ah iyo inta kale nala shaqeynaysay waxaan halka uga mahad celiyo qof walba oo ka qayb qaadatay oo saxaafadda ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida hay'adaha amniga oo u mahadnaqaya taliyaashooda hawshan hadda way bilaabatay maanta way noo sii socon doontaa hadafkeena waxa uu yahay wadada wadnaha oo la dhisay oo la hagaajiyay oo bilicda la soo celinayo oo hadda wadada wadnaha noo dhisan midda Sodonkan aan dhagax dhignay oo hadda soo maraysa albaraka oo aan rajoonay inay dhamaato annagu waxay noo tahay ahmiyad weyn wadada isku xirta wadnaha iyo Sodonka ee wadadan meesha cirtoogta la yiraahdo marayso ee ilaa isgooska Bakaaraha ilaa isgooska Blacksea isku xirayso in wadadaas bilicdeena soo laabato dhismaheeda soo laabto insha Allah taala sababtoo ah laba wado oo halbowle ah ee wadanka wadnaha iyo Sodonka la yaqaan ay isku xirtaa marka sidaa darteed hadday noo bilaabatay wayna sii socon doontaa insha Allah taala ilaa aan xaqiijino in laamiga uu soo baxo la hagaajiyo marka hawsha ay dhamaatana waa laga hadli doonaa hadii la gaarsiiyo oo saaka sidaan ku bilaabay saxaafadda way aragtay marka guud ahaan waa u madcelinaa dadka meesha nagala qayb qaatay ee dariska meesha jooga suuqleyda meesha joogta iyo qof walba muqdishaawiin ah marka waxaan mar kale ugu baaqayaa dadka muhiimaddu waxay tahay wada marka la hagaajiyo ama la baneeyo inaan lagu soo laaban annagu maanta wacyigelinta waan sameynay waa kala qayb qaadanay laakiin waxaan xaqiijinaynaa wadadaas inaan lagu soo laaban annagoo kaashanayno degmooyinka ay quseys wadada inaan marnaba lagu soo laaban dawladdu waxaa timid dadkeeda iyo dalkeeda wada jecel oo hal meel aan ku ekeen oo meel kasta oo lalaha ka sameynaysa haday noqon lahayd amni haday noqon lahayd nadaafadda marka ugu dambeyntii shacab weynaha degan labada degmo Hodan iyo Howlwadaag waxaan ugu baaqayaa nadaafaddu waa iimaanka barkiis maanta waa bilownay waxaan la xaqiijinaa nadaafadda in ay sii socoto gudoomiyaasha ee labada degmo inala joogana way mahadsan yihiin waxaan ku boornaa ayagana in ololaha nadaafadda ahmiyadkooda ay u noqoto aad iyo aad ay u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh